shirweynaha beesha Ibrahim Allamagan Hayiile oo magaalada Burco lagu soo gabagabeeyay ayaa waxa ka soo baxay qodobo shirkaasi ay ku gaadheen beeshaasi waxaana munaasabada gabagabada shirkaasi ka soo qayb galay waxgaradka odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo maamulka gobolka Togdheer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beeshaasi waxaana halkaasi ugu horeyn laga akhriyay qodobada guud ee shirkaasi ka soo baxay iyagoo dhanka kale hadalka iska daba qaateen marti sharafta kala duwan madax dhaqameedka iyo odayaasha oo bogaadiyay shirkaasi iyo qodobada ka soo baxay waxaana kamid ah hadaladoodii beesha reer Ibrahim Allamagan oo kamid ah beelaha dega gobolada Togdheer Saaxil Saraar iyo Sanaag waxay shir uga furmay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco taariikhdu markay ahayd 22 bishii 7 wuxuuna soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 8 haddaba shirweynaha beesha Ibrahim Allamagan ay kaga tashanaysay aayaheeda iyo wixii ay u aragtay danaha qarankaba waxa ka soo baxay wuxuu taageeray in qarannimada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay muqaddas shirku wuxuu isla gartay in beesha Ibrahim Allamagan adkayso midnimada dhexdeeda shirku wuxuu go'aamiyay in beeshu nabad kula noolaato dhammaan beelaha ay daris wadaaga yihiin shirku wuxuu isku waafaqay in beeshu ka qayb qaadato horumarinta deegaanadeeda ama horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada caafimaadka beeraha biyaha iyo wadooyinka shirku wuxuu isku raacay ilaalinta deegaanka sida daraadeed beeshu waxay isla qaadatay in laga hortago gubidda dhuxusha garaacista dhirta qoyan iyo dhammaan wixii keeni kara xaalufinta dhulka iyo nabaad guurka dhirta beelaha ay wada degan yihiinna shirku wuxuu ka codsanayaa in meel looga soo wada jeesto ilaalinta deegaanka maadaama nolosha xooluhu ay ku dhisan yihiin ilaalinta deegaanka shirku wuxuu isla qaatay inay midayso sakada beesha shirka waxaa laga magacaabay guddi horumarineed oo ay beeshu yeelan doonto shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay mashaariicda horumarineed gaarsiiso deegaanada beesha degto gaar ahaan degmada Laasciidle oo kamid ah gobolka Saaxil degmada Fiqi Ayuub oo ka tirsan gobolka Togdheer gobolka Saraar iyo guud ahaan gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland shirku wuxuu codsanayaa in xukuumadda Soomaaliland inay hirgeliso wadada Berbera Raaribuul taas oo ahayd ballanqaadyadii xisbiga wadani ee xilligii ololaha shirku wuxuu ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro xukuumadda uu garwadeenka ka yahay in ay beeshani ka hesho saamigii ay xaq ugu lahayd ugu dambeyntii shirku wuxuu ku baaqayaa in maxaabiista inagaga xidhan laascaanood ay dawladdu si buuxda uga hawl gasho soo dayntooda wada kasta oo suuragalana ay u marto Ibrahim Allamagan Hayiile sida fiican aan nooga aqbasheen yeeritaankii aan idin yeedhnay ama dalabkii aan idin dalabnay waxaan runtii u aragnaa si sharaftii ay ku jirto tolnimo iyo wanaag ku jiro jeclaani ku jirto inaan noo soo qadarisan oo uga soo qayb gasheen baan u aragnaa waxaan soo dhaweynayaa aad iyo aad u soo dhaweynaya beesha Ibrahim Allamagan ee Hayiile ee shirka qabatay ee muruqooda iyo maalkooda iyo manfacooda labadaba isugu geysay qodobadii beeshu gaadhay waa la idin yeedhiyey annagana waxaa nagu taageertaan
oo noogu ducaysaan waxaanu soo gaarnay inuu ilaahay nagu asturo wadada in la sameeyo lama ogolo habar jecloon وإلى أنت أنقرأت هذا السنة يلا هاي والدولة دي لا تميل إلهي كيامي هي خيارها شرعية وكرتشات خير كان وصل دلدي يقول وخير سلطان على وي كان رئيس أنت العج إيه أي جلين إيه هبرش على وقول يالين وحنا كنت شني يا وحنا هبرش على كل طريقه هبرش على وجينه أو يسوق يالنا وواحد واجب وليه أما وناق الدنيا آخرة وكود دونها النقطة وناق إلا يسفره وحدنتو كجرتو الدنيا آخرة أو إصلاح بين الناس مشاكلات عالم كودا كتشري إلهي سبحانه وتعالى بقعدين إيا أنت كوباغن إيا أنت هريري هذا إيا دمان وحي مسلمين تنقصيهم مذيهين إلهي سبحانه وتعالى حيرو إصلاحيو عن درامي مدنته إلهي أما أوليهي أما أوريريونس أوليهي أما هبرتش على أوليهي شركلو أيان دانيني وانا كم مغطى قالوا إذا كنت عيننا قوامضا أصوص أرتين إلهي إنو كدقوا كوا بركيسان قلت لنا قوامضا أصوص أرتين إني فري يشان بان وسود ويني وانا نريد كرعنا وانا إذا لا أقبلي وحا أصوص أرتين أنا وان وأقبلي halka kaga tagina tusaale shakada oo kale waa muhiim inay meel ka muuqato faqriga lagaga baxo xasanaad in la yeelato dadka aabaw hayo qodaxda baabacay kaga taagani dad loo soo qodaxda ka gura waxa tiraaheena ama nabaha noqoto ama saabiqaysa ha noqoto ama rag ha noqoto waxa ka hadashay la weydiin la qaadan waa la idin qablaa weynayna beeshan hayle ee muddada shiraysay ee shirkoodii soo gabagabaysay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa beesha Ibraahim la magan qodobadii ay halkaa ka taataabteen soo bandhigeen naas mujisaaro alla badanka kale ka tagtaan annagana naga tagtaano saldarada guud habar jeclo inaad tiiris mujisaarna waan idinku bog xafladaha la qabto ka fadilan insha Allah waa ugu ducaynaynaa wixii ka soo baxay halka laga akhriyay midhii halka laga akhriyayna waa midho runtiina wada anfacaya ugu jiro ayay ahaayeen intaba waa idin la qaadanay oo isku taageeraynaa waxaan leenahay aan ka wada shaqayno way ku mahadsan yihiin inay hoos u shiraan oo intay royoos ka tagaan oo lama ka tagaan ay hay'ilo ku shiraan way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsantihiin waan idinku bogaadinaynaa waan idinku mahadnaqaynaa go'aamada saldanadeeda ee go'aamada haddii ay ballan meel markaa ee aydinaan isku koobin ee Soomaaliland oo dhan wada hadasheen aad iyo aad baan idin la qaadanay waana ku mahadsantihiin muddo waxa la inta Belgiga waynu isgaranaynaa laakiin aad qaadashadan ku hadla marka dadka kale la hadlayo markaan ka soo fiisaynay sandalada Belgiga ee inanta aqalka shiraadaysana aanu ku haraynay shirka dambeeyay way imaanta waxaan u mahadnaqayaa oo mahad gaara leh beesha hay'ile ee shirka qabatay waa idin mahad celinaynaa boqolkiiba boqol baan idin mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh waxa wanaagsan aad ka shaqayseen wax wanaagsan baa ka soo shaqayseen oo midnimo reer baa ka shaqayseen waa dadaasheen boqolkiiba boqol waa idin soo dhaweynaynaa waxa laaliyo waxa wanaagsan oo idinku taageerana hadaan ay guddiyo guud ee beelweynta habar jeclo danko waa nin weyn waana xanuunsanayaa halkan waan ugu ducaynayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad siiyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu camal wanaagsan ku sugo ilaahay waxaan uga baryayaa intuu soo talinayay waa soo talinayay intuu nool yahay uu joogana waa talinaya reerku hadduu suldaankii guud yahay oo isagu shiray horta marka hore wixii uu ku soo shiray iyo qodobadii uu soo gaaray oo ku bogaadinayna waana la qaadanay waxa aanu jecelahay oo kale ile reerku waa hogaankii jeclay haddaydan sida qabaa'ilka shirin oo isu iman oo go'aan yeelan
oo marka foorka bixinaya meel wada marin waxba idiin hagaagi maayaan habar jeclo waxay iska dhintay baa ka dhiman waxaan ku talinayaa in beesha hoggaanka ahi ay habar jeclo shuu barato oo shurkuud ku baahdo halkanna marka hore waa ku wada shaqaynaynay halkan tagayana insha allah waynu ku wada shaqayn doonnaa qodobada aad soo saarteen waxaa ku arkay hal qodob oo i soo jiitay kadu marka hore way baxaysay si tafaraaruqa bay u baxaysay laakiin marka la mideeyo in badan oo reerkiiya oo baahan bay wax u taraysaa mar labaad iyo mar saddexaad baa hambalyaynaynaa beelweynta halkan ku qabsatay shirka ee go'aamadan qiimaha badan soo saartay bini aadamku wuxuu u nool yahay waddo la helo ayuunbuu horumar imanaya waa meel dhib badan anugu labadaa gobolna waxaan ka soo noqday barasaab aadna xogogaal baan ugu ahay waa siibteen mar hadday tirahdeen wixii la qabanayo waddadaa madaxweyne hana loogu horraysiiyo haddii dawladdu karayso waxaa loola lahaa deg deg ha loo bilaabo maxamed mataan gabalaax wararka telefishinka Home Cable